هذا ضمن صندوق horta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin qoqosaya ma siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed xaqiiqatan dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka qabaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadiyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan taas oo waa iska nasiib daro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikrada guuxan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamida dhigi ma karna hadda siyaasi ma dhigi karna xaqiiqatan dadka fikirka noocaas ku jiro laakiin ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta maxaa ay xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ay ugu adeegayaan oo cadawga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatan waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaqiga dabtaan oo jira waa mid aan hadaafta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan way taasaan dhigi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa uu soo jiriyay uu shaqay doonaa cid dadka ugu adeegayo u shaqeynayo qaybka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haarun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatan marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinacsan oo loo eego dhinacsan laga eegayo dee qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa sheega aragtidiisu ay sanadiisa yahay iyo aqoonyadiisa 19 Febraayo oo laga sheekeynayaan isla dareensanayno 19 Febraayo sidaa la socodka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dadkuna qaasna waxay ku tilmaamayaan mas'uuliyiin ama musharaxiin dalkan u taagan ama qorna mas'uuliyada kala duwan uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta oo jirta waxay tahay oo la socdaan 19 Febraayo waxa dhacay 19 Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida inta tagay waxay ka cadeeyeen in ay la wareegaan wax dawladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarsan aan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dacdada adii sheegaysa aan nisbatan dacdadu waa dhacday horta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed bana dhaxay kuma shaqeeyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed shaqadiisu waxay tahay wala yaqaana ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed mas'uuliyadii waajibaadka saaran waajibaadkoodu waa qayaxan waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan badxiriyadu waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay'adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas'uuliyad saaran in hay'adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii did ku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas'uuliyad saaran waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed taas inaad hadda aad weydiiso waxaan u maleynayaa inaysan ku habboonayn horta aad iyo aad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaan karaan wayna isku ku kala duwanaan karaan taas hadda kale hawl anaga ka ciidan ahaan noo taala ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxay joogaan gobolka Gedo waxay joogaan gobolka Jubbada Hoose
kismaayo joogan oo caasimada ku meel gaarka maamulka Jubbaland waa marka aanu hadda man garan karaba wax gobolka Geedana ka xaaraantinimeynay kismaayo oo caasimadii ku meel gaarka ee Jubbaland oo xalaaleynay taama ba garan karaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hal talisan laga xukumaa hal mas'uuliyadii fuliyaan hal waajibaadii leeyihiin marka hawlahaas waa hawlo muxuu ahaay sheegay iskacad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas'uuliyadiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee marka gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas'uuliyad saaran wixii ka socday hadda intii meesha joogeenna waa wax cid walba ay iska garan karto marka ma ahan wax u baahan ba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meel aysan xaaladu marka aysan taagnayn April way ayantu ogaayhiisiyo idigeeshka weeyo waa udub dhaxadkiyo adimadu ku tagnaa arleegayno leenay April way ayantu ogaayhiisiyo idigeeshka weeyo waa udub dhaxadkiyo adimadu ku tagnaa arleegayno leenay waa maantideena calankana astaantiisa waa eeba cadowgeena oo faajarayse waa maankideena calankana astaantiisa waa eeba cadowgeena oo faajarayse adkaada xoogeenu April 12 waa lama ilaa awaad adkaada xoogeenu April 12 waa lama ilaa awaad awooda la mariniyo waylaala meerto axdi waxay ku qaadeen ummadiyo dalkoodaba inay aamin geliyaan awooda la mariniyo waylaala meerto axdi waxay ku qaadeen ummadiyo dalkoodaba inay aamin geliyaan siday ururshaan ama ugu adeegaan cadow uga ilaashaan ama uga adkaadaan siday ururshaan ama ugu adeegaan cadow uga ilaashaan ama uga adkaadaan dadweynu ammaaniyo ambalyaan islaaniyo ducay ku haydaayaan afka baarkii maaye urkay ka jeceliin dadweynu ammaaniyo ambalyaan islaaniyo ducay ku haydaayaan afka baarkii maaye urkay ka jeceliin adkaada xoogeenu April 12 waa lama ilaa awaad
adkayd xoogeenu ibril labiyo tobankeed waa lama ilaawaan waystaqaan adduunyadu laysku arag dagaaladii ninkanaadyadeeyana aflibaaxinuu galay dibna loo arkaynba